dabcan wejigan kuguma cusba oo meel waad ku aragtay balse laga yaabee inaad baadigoobayso halka ay tahay waa xidiga da'da weyn laakiin dadka u maaweeliya sida wiil 18 sano jir ah oo kale Shariif Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka sida maalinlaha u soo duuba muuqaalo gaagaaban oo uu madadaalo uga dhigo dadka ku xiran koontadiisa TikTok gabaryahay golahan burburin qaran mabageli kare heesaha raabka ah iyo kuwa luuqda macaan ku baxa oo lagu daray habjiliinkiisa aan caadiga ahayn waxa uu ku suureeyaa sheekooyinka markaas ka dhex taagan bulshada Soomaaliyeed isaga oo inta badan dhalinta wacyigeliya inaan TikTok soo galay lacag inaan ka sameeyo ma ahayn waxaan bilaabay sidiisaba dagaal aan qolo kula jiray qolan dagaal kula jiray inaan global horta tan ku bilaabay cid macallin ii naqatayna male markii aan arkay qabyaalad inay dhamaato Soomaalida inaan wax ka bedelo waxaan dhaqankan TikTok ku dhex jira aan wax ka bedelo isku taxaloojiyo mar wacdi mar salli mar macnaha sheeko oo ku saabsan sida kii aan ku bilaabay oo kale Somali Beach wax ka baro bum bum 91 kii wax ka baro barakac burbur abaar anoo ka duulaya oo aan ogolayn ilaa alaankan ku jooga hadafkaygu wuxuu yahay Soomaaliya ha noolaato inay qabyaalad ka dhamaato Shariif isaga ayaa muuqaalada iska duubo oo ma jirto cid ka caawisa balse sheekada ninkan da'da ah ayaan waxa ku eegaynaa laba arin oo dadka Soomaaliyeed la yaab iyo lama filaan ku noqotay taasi oo kala ah ninkan oo jirsigiisu adigan daawanaya uu ka weyn yahay uu soo bandhigay muuqaalka isaga oo kala footo kacaya iyo midda labaad oo ah mid hadal heen ka dhex abuurtay baraha bulshada taasi oo ah in Shariif uu si barangi ah uu u guursaday gabar ka yar oo iyana ka mid ah dadka isticmaala aaladda TikTok hore waxaad u aragtay daawade isagoo ku soo bandhigaya samso ama genestico sida aad u taqaano hadda way ka duwan tahay taas wuxuu ku soo bandhigayaa isagoo oo jirka dhisanaya ama aalimiitsanaya haddaba dad badan oo caloole ay ku taalo waxaan u maleynayaa inay kaga kaaftoomi doonaan habka uu soo bandhigayo isagoo markaasi ciyaaraya push up daadu waa kaliya tiro kaamana reebi karto inaad wax jeclaato waliba aad jecel daran u qaado gabar da'yar oo qalanjo ah iyo inaad noqoto xidig TikTok ah sida Shariif uu aaminsan yahay waxa igu kalifay inaan dhalinyareeyo waxa igu kalifay wili qalbigan dhalinyaro ka ahay waana jeclahay dhalinyarada dadka inaan dhex galaan rabo dhalinyaro marka odayga ay dhibayso oday in la yiraahdo way dhibaysaa maxaa saaxiibay wala marka dhalinyarada markay iga badiyaan marka war odayga ayaan naga qabto marna dhaantaynayo marna saliga wax walbaba inaan macnaha aan qaban karo dhalinyarada waxayna qaban karin hal laba noo sheeg maxaa tusto marka waxaan tusay hal mar anigoo genetic isgadinayo ilaa alaankan dadku waa la yaaban yihiin caadi ma hadaba been u malayaan wali mar la gadgadiyo u malayaan ilaa ay arkaan orodka qalanjadan waa ayaaniita waa gabadha kaliya inta badan muuqaalada la duubto Shariif kuwaas oo hadda noqday laba qof oo isku lamaanan waxa waaye anoo maal habeen iska fiirsanaa fiidiyoyaal ii soo galay profilkiisa galay like badana si follow aday xataa sawirka oo profilku saarna screenshot ka qaatay hees iska soo saartay markaan soo galay fiidiyo uu ii kala kacay mid labaad ku soo celiyay sidoo kale oo ka casaan ka soo hadla comment markuu soo hadlaana comment u gal waxaan leeyahay lambarka ii soo dir WhatsApp ka wada hadalnay adeer waxaan barangi waa caadi waa hawshaad wado ilaa waa u imaanay maalina u imaanay meeshaan ku wada qadeynay iska baashaalne
oday waxaa waaye dee oday ma dhihi kara ay ugu soo boodin wiil dhalinyaro kowdhe wuxuu samaynaysa maad arkin maasha allah tabaarak la inaba caadi maaha. Bulshaabi waxa uu tiim la yahay Ayaan iyo Shariif waxa uu ka hadlayaa waxa uu barta TikTok ku soo bandhigo hadda amal cunug yar amal iska dhiga aba ana wala bilaatna wala ono ano maxalna wa absano meeshan iyo bixi abo ku toga cudweyn amalna waa iska dhiga wariyaha maxaa dhacdo wariyaha meeshan naga leeyahay wariyaha wa absano iyo waxaan sheegay naga dhaaf wariyaha marka codadkaasi waxa jirmaade fiidaas. sheekadu waxay ka bilaabatay baranki laakiin hadda Shariif Xuseen inkasta oo uusan afka marin isaga oo la duubayo karin weedha ah inuu gabadhan jecel yahay haddana intii aan la joogay indha jecel oo dabacsan